السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبربارت ميديا أو ديارة برنامجyada kala duwan ee madadaalada sida qosolka maada murtida iyo sidoo kale intaba shactirada iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh oo idin soo kordhinayna insha Allah inta ku xiran barnaamijka barbaarta media waxaan u taaganaa inaan idin qancino farxadiina aan qayb ka noqon insha Allah haddaba maanta waxa wadnaa wax idinka faa'iideeyay ah aan filay inaad aad u wada heli doontaan insha Allah najibo dadka Soomaalida ogtay waa dhibane qof waqtigu ku dhiban yahay aad iyo aad qof waxbarashadu ku dhiban yahay jadwalkeeda oo ku dhiban yahay jadwalka noloshiisa qaab ku maareyn lahaa oo ku dhiban yahay qof wuxuu ku dhiban yahay arrimaha guurka ku dhiban yahay guursada jiro ama guursato 40 jira iska raageen gurigooda ku nool oo gurigooda ku nool intii markaas dul saaran qof cuntada oo dhib ku yahay qof shaqada dhib ku yahay si fiican qofba dhinac buu ka dhiban yahay waqtiga qof dhib ku ah dhibaato ku qaba marka dad badan oo anaga nagu taxan ayaa waxayna soo weydiisteen inaan siino tala bixino kala duwan si fiican fariimayna soo qoreen aragtiyana soo weydiiyeen hadda nolosha kaliya ma ahan inta anaga nagu xiran kaliya ma ahan dad badan waxa jira magaalada jooga aan talooyin siino aad u weyn maadaama aan arimaha bulshada ku soo dhex jirnay muddo 12 sano horena barnaamij noocan oo kale u soo qabanay codsiga dadweynaha aan fiirinay waxaan go'aansanay inaan dadweynaha u soo kordhino barnaamij la hayo ila tale wow waxaa la talinayaa qof kasta oo dhiban qof kasta oo noloshiisa la dagaalsan dalad waxa la sheegay guur aroos 10 daqiiqo ku dhamaaday khamna oo dhacay arooskii socdo ayaa waxa la yiri waxa soo dhax galay arin aan la filin si fiican gabadhii oo kale ayaa waxay xiriir lahayd wiil kale oo markaas waqti dheer ay wada socdeen ninkan dibadda ka imaaday gabadha waa lagu meheriyay arooskii socdo ayaa arintii tagtag ma ka dhaxlo si kala loo buubuniyay haye reerihii baa isqabsaday oo lagu kala tagay abeenadii aroos ma baaqday abeenadii goobta oo lagu kala tagay marka arooskaas ma baaqday wala hadda inuu ma aqaan in dib loo yeglay ma aqaan laakiin aniga dadka meesha jooga kamid ahaa si fiican ilaa hadda tagtagas marka la kulanto kale ilaa hadda wax xalada noocaas tagtag marka la kulanto kale kawaran waxay u baahnaa qofka dadka waxa jiro oo hadalo waxa jiro xan dad la wareegayo hadii arooska banad uu noqdo la banaday lacagta ma la soo celin doonaa maxaa alaabta waxa arki jiray alaabta filmaanta arki jiray koode ya ramiri ala soo jiray arooska iska wadana ajay deefka amal awr iyo adoora wax giran oo tirishada loo jeedo arki jiray koode wacdaha nolosha wax kasta way dhacaan wax walba dhaca adduunkan wax walba iroomayso wax kasta way dhacaan marka waxaan rabnaa asxaabteena inaan u faa'iideyno waxaan keeni doonaa abwaana keeni doonaa fanaaniina keeni doonaa dad khubara keeni doonaa dhibka aad qabtid dadaa waxbarashada maana la keeno oo ku dhiban yahay maana la keeno buugaga la gada iskuulaha tagaa ma jaamacad ma la dhameysanayo waa laga tagayaa meesha ku soo yaa mida buufis ida buufis ku waash buufis ku waash arma buufis ka xitaa dabcan waxaan talan ka dibinayna dhinaca la talinta oo dabcan dad badan oo khubara noo joogo dad dhinaca cilmiga psychology oo wajiraan ayagana oo si fiican markaasi dadka cilmi nafsiga gudagali doona qofka stressayo qofkii arrimaha qofa dhafar xamudraaga ayaa jiro see ku xalinay magaalada illa xali waa arrimaha dhafarka iyo qaabku hurdo ku heli lahaa saa ku xalinay qof dhafaraay والله قبل هذيك إننا سوشيال ميديا وجرا قبل جوكت ولا تلا دونا معناه ضفك أنت تركيز ولا يحد هدي قفك حد وكسب معقولة إنه قفك حتى ما أنت لها إنه ما أنت البربرة مسكحين إنه مسكحين ما أنت كفاء قب هدي قفك نسكت حياة عن آخر بركي هدي قفك ضفك يسوبته حتى حباب حتى برامج كسوق بقول لنا سو ما دام صاحب بدن وكميديا وحنا بدن دقاتيرها هنا ما ضفك dadka dhafarka badan talooyin ayagana waa loo hayaa si dhafarka iskaga yarayaan dhafarkan sikada waxay keentaa waxyaabaha oo qayb ka mid ah waalid laakiin arrimo badan ay jiraan joo arrimo badan oo jacayl ku saabsan dad badan baa jacayl ku jiraan nin xaasila waxa leeyahay hadda inkastoo muddooyinka dambe gabdhihii awla waxa la jiray ninka doonaanka waa laga carari jiray laakiin hadda lagu soo cararayo laakiin hadda normal caadi ay noqotay si fiican marka sidee la isku waafaji karaa nin iyo gabadh markaas bilaw ninkaas xaaska qaba ugu shidan tahay aad iyo aad qaar badan aniga nado
anaga waxaan Soomaalida been Soomaalida siya soo qoray qaar badan kumitida akhriya mugtay qaar badan oo najib raadinayo najib inta kale kala lambarkiisa qaar soo qoran barnaamijka la tali armaas inuu ka caawina insha Allah sidoo kale wuxuu bixinaa talooyin xagga caafimaadka iyo kuwa maskaxda kuwa professionalismka qaar shaqooyin ku wareersan si fiican armaha shaqada shaqada ku dhiban macnaha waxay bartaan jaamacadda waxaa ka barataa barnaamijka caafimaadka ama health barataa si fiican adoo health barata marka ganacsata inay noqoto xoogaa dhib ugu tahay health barata arkay maxaa la bajajla ama ko oo barta waxa arkay maxaa la ii sheeg dhaqaalaha soo bartay oo IT ku soo bartay waxa arkay farmasho furan marka anaga soo bartay ama public administration soo bartay meelo kale loo qala ugu shidan tahay si fiican ama waxa u furan maqaayada u furan ama ko waxa u furan maxaa la ii sheeg meel ay wareerin iyo balay ku dhex jira macnaha dad badan jiro xitaa suuq qasan tahay shaqada ayb maahan laakiin caqabadaha nolosha qofka soo wajaho iyo dhibaatooyinka qofka ku imaado la talin u baahan dabcan qof hadaa aragtid oo toosan wuxuu helay talooyin badan ayuu helay dadkuna wax ka dhageystaa anaga waxaan diyaar u nahay inaan wax idinka dhageysano adinkana tala idin siino dadka jecelka hayna si gooni aan u daryeeli doonaa wala baxnaan doonaa bam 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 aadiya dadka hadda marka daneynayana waxay ku soo qori karaan WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ku soo qoraysan ugu soo diri karta dhinaca aragtidiina lambarka hoos ku qoran lambarka hoos ku qorna u jeedaan hadda oo shaashada marka idin saaran ayaad ku soo qori kartaan aragtidiina xitaa waxyaabo cusub aad ku soo qorsi kartaan aragtiga cusub xitaa waa kala kartaan barbaarta media waad ku soo kordhi kartaan barbaarta idinkaas kale waxaan idin joognaa had iyo goor idin joognaa farxadiina waxaan u joognaa inaan idin dhiirigelino waxaan u joognaa inaan idin madadaalino arrimaha hadii ay waxa fursadan anoo ka faa'iideysanayo waxaan rabaa dadka asxaabta barbaarta ku xiran ee jooga dalka Mareykanka fariin waxaan u wadaa ugu imaanaysa barbaarta aad iyo ku mahadsantiin reer Minneapolis Columbus si fiican dad badan xaggan wala waxa aad iyo maalmahan aad inuu raadinayeen Chicago aad baa salaamena San Francisco ka reebin aad iyo aad dad badan halkaas macnaha dabcan nagala soo xidhiiday oo kamid Mareykanka dadka jooga kama marna ma iloobi karna Yurubna sidoo kale iyadoo isku duban reer Sweden Norway Finland Ingiriiska Chicago in the house aad iyo aad xagga Belgium sidoo kale waa la joogaa saaro salaameyna aad iyo aad dad badan ay joogaan dad badan nacsan oo joogno noo joogno jiraan wakiilada si fiican wakiilada barbaarta media kale ay ku joogaan may Soomaaliya madaxaynu saarin anaga joognaa Muqdisho joognaa Muqdisho joognaa Soomaaliya joognaa reer Soomaaliya waa salaameyna reer Soomaaliland waa salaameyna reer bulshada inta u tagay koonfur galbeed waa salaameyna galmudug waa salaameyna Shombe inta u tagaysaa Puntland ya Shombe inta u tagaysaa Shombe waa markii ugu horeysay YouTube laga saamo Shombe iyo Xaraare iyo waa salaameyna groupkaas waa salaameyna laacibiinta waaweyn dhinaca afka markaas iyo arrimaha falanqeed marka aan dulmarno barnaamijka la tale aan marka lagu celsho barnaamijka la tale waa barnaamij ka saacidi doono la talinta jaceelka la talinta waxbarashada la talinta shaqooyinka la talinta nolosha la talinta buufiska iyo haadka iyo cararka iyo markii yahu ku soo dhacdo mar qof kale iska qaaday mutaadi mar waxa jir qof waxa jiro qof dabees ka cabsaartay wallahi habeenkii aad iyo aad oo qaru qabo mar waxa jir la kala shakiyo kala shakintaas xitaa naftirkeeda nolosha qofka saas ka shakinaa mugta kala shakinta naftirkeeda talooyin dabcan khubar badan noo joogto si fiican buwaano tuunka badan ma fiicno dhaqaatiir kalsooniya fiican Soomaan jaceelka tusaale markaa mas'uul noqotid waxaan ka wadaa markaa xaslo noqotid aad iyo aad waa ina reerka wuxuu ku dhisan yahay is-aaminitaan iyo kalsooni aad iyo aad laakiin hadda tuulo tagaan everywhere alaabti marshaala camal cusbada maqmaqa hadda dhadid maxaa dadkan cusbada soo doonaa yaa la imaan inta maray mar nimanka xilli gooma nin karna kulli Soomaalida dhaqankaas xilli hore sheeka ku maqli jira laakiin aniga saa u weynaado ma arkin laakiin masiirka waa iska jira masiirka dadkii hore la tagay masiirka waa jira dadka dambana qaar ay masiiro waa jira oo dhaay ani dadka hore nin saaxiibkii ku dhacday waxa uu dhamta qadaa waxa uu dhahay wal soo wacay waxa uu dhahay maxaa like u siisaa marka saaxiibteeda like u siisaa nima lagu dhahaa bilaay maxaa like u siisaa mar dambe like siin bolo ka saar
oo dhahay ayada badan ay qabato arbu qabanaya maanta dhan laaga siinaysa marka xoogaa yar social media xataa dad badan ku kala tag dad badan ku kala tag Facebook iyo arrimihiisa marka arrimahaas dhan waa xelanayna insha Allah talooyin badan ayaan bixin doonaa oo khubaro badan halkan soo fadhiisan doonaa oo talooyin markaas bixin doonaa waad nala soo wadaagi kartaan arrimaha jacaylka arrimaha boofiska arrimaha qofka noloshiisa jadwalkiisa ku dhiban wixii tala sidoo kale tusaale aad sii kartaan barbaarta media iyana waxaad inoogu soo qori kartaan WhatsApp-ka shaashadada kaaga muuqda dabcan had iyo goor waxaan u taaganahay farxadiina iyo dhiirigelintiina iyo inaan idin madadaalino oo aan idinka faraxsiin barnaamijkan haddii dadweynaha codsigooda u bato waxaan ka dhigi doonaa toddobaadkiiba 3 mar ilaa 4 mar waan badi doonaa haddii aan aragno baahida dadweynaha inay xoogaa yartaana toddobaadlaan ka dhigayna waqti aan sameynaa laakiin codsiga waxay ku xiran tahay adinka sida barnaamijka u soo dhaweysaan ama u xiiseynaysaan hadba markastana waxaa soo fariisan doona qof weyn oo aad taqaantaan ama qabiir ah ayaa soo fariisan doona insha Allah marka barnaamijkeena hordhiciisa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waa bahdii barbaarta media oo idin leh qosolka ha socdo farxadda ha socoto nabadgelyo